kulankan oo ay soo qaban qaabisay jaaliyadda Talawadaag ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyadoona kulanka uu ahaa mid lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Waxgaradkii iyo mas'uuliyiintii kulankan ka hadlay ayaa ugu horreyn u mahad celiyay jaaliyadda Talawadaag iyagoo dhanka kalena si weyn u soo dhaweeyay shaqada uu dalka u hayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, sheegayna in loo baahan yahay in lagu garab siiyo. sida ku muujinay tabeelaha halkan cidna lagu afragaadin maayo, cid lagu xumeyn maayo, cid lagu dhaleeli maayo. dhammaan beeshu haday waxgal leedahay, haday culimo leedahay, waxay aad ugu faraxsan tahay kuwa balaayaysa ra'iisul wasaaraha hawsha fiican oo qaranka u hayo oo badbaadada ee Soomaaliya oo dhan ku taageertay. wax ku garab taagan waxaan ku boorinaynaa dhammaan in lagu daafuro ra'iisul wasaaraha, in loo duceeyo, in lagu gaargaro hawshiisa, in gacan lagu siiyo. salaam bacdigeed wax kale uma aanan iman meeshaan, waxaan u nimid taageerada ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaruhu wax taageera oo u baahan yahay ma jiraan, ilaa xaqiis baa laga taageeray. muslimiintoo dhan baa taageertay, muslimnimada lagu taageeray, bini'aadanimada lagu taageeray, waxqabadkiisa iyo muuqaalkiisa lagu taageeray, sidoo wax u qabtay. cid uu taageero kale uga baahan yahay ma jiro, sababtu cid nin ilaahay taageero bini'aadam taageero uga baahnaan maayo. soo jeeda waxgaradka iyo saraakiisha iyo cuqaasha iyo ururada bulshada dhammaan qof waliba mansabku meeshaan ku fadhiyaan ku salaamayna. salaan kadib walaalayaal, munaasabadan waxay maanta ku kooban tahay taageero la taageerayo ra'iisul wasaaraha qaranka ummadda Soomaaliyeed. halkaan ku qoran tahay waxyaabaha aan ku taageerayno, halkaan ku qoran tahay. waxa weeye wax intaa ka weydaarsan munaasabadaanu kuma salaysna. cid gaara oo lagu taargegaranayaa ma jiro, cid kale oo aan ahayn asaga oo hadda taageero maanta meeshaan la dhigahayaan ma jirto. asaga baa u nimid inaan ku taageerno. wixii fiican wixii wada waa la taageeraa.
wixii fiican wixii wadana wala dhiirigeliya wuxuu maanta naga astaahilaa waxa fiican oo wadana inaan ku taageerno dhiirigelin aan u samayno una ducayno ilaahay inuu ku asturo ilaahayna ku guuleeyo waan salaamay dhammaan marti sharafta iskugu timid halkan nooc kasta iskugu jiraan muxuu ahaa dhaqan dhalinyaro nooc kasta iskugu jirtiin baan idin salaamay muxuu ahaa walaalayaal adeerayaal maanta waxaan iskugu nimid taageeridda ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xafladan waxa soo qaban qaabistay muxuu ahaa jaaliyadda tala wadaag oo iskugu jirta muxuu ahaa daafaha caalamka oo dhan jaaliyadaas waa jaaliyad ka soo jeeda deegaankan mudug ama galmudug jaaliyadaas waxay taageertaa deegaanka waxyaalo badan bay taageereen waxay taageereen ciidamada oo ay raashin u geeyeen waxyaalo badan bay ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan muxuu ahaa taakulaynta dadka jaaliyadaas waxay u istaageen in muxuu ahaa deegaanka ay waxyaalaha ka dhiman dayac tiraan markaas muxuu ahaa deegaanka waxay codsadeen in dhaqankii la iskugu yeero dhaqanka markii la iskugu yeero deegaanka waa inuu yeesho dad u hadla oo duqow dad aan dhaqan lahayn deegaan aan dhaqan lahayn ama dad u hadla ama wixii ka khaldan sheega waa dad aan jirin oo kale la mid tahay hadda dawladda federaalka Soomaaliya waa dawladda Soomaaliya oo dhan bay u dhisan tahay inagoo dhan bay dawlad noo tahay galmudug dib badan baan ka soo marnay dawlad bay noo tahay sidaas oo tahay hadda waayadan dambe waxa iska muuqda habacsanaa dhinac kastuu yahayba hadda waayadan waxa soo baxay in muxuu waxyaalo badan ra'iisul wasaaraha hadda yimid inkastoo markii hore cusbaa hadda waxyaalo badan oo lagu taageeri karo ayuu sameeyay markaas jaaliyaddu waxay garatay iyo aniguba in la garab istaago oo lagu garab istaago cadaaladda ayaa horumar lagu gaari karaa fidna iyo lafa iyo qabiil iyo horumar laguma gaaro muxuu ahaa intaan fidna isku taageeri lahayn cadaaladii aan ku taageerno si uu isna shaqadiisa u sii wato uu doorashooyinka uga shaqeeyo oo ra'iisul wasaaraha waxaan leedahay hafiga ummadii ka harada hana qaad Allah ka dhig waxaan taageeraynaa ra'iisul wasaaraha waxaan ku taageeraynaa runta iyo xaqqa uu ku taagan yahay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waayahay waxaan u malaynayaa aniga marka ugu horeysa marka salaan ahaan ra'iisul wasaaraha ninka walaada inuu ka arka sawirka mooyaan arkay maayo aragisa kala arkay ummadda dhan oo Soomaaliyeed baan dana gaar wax la waa gaarkooda laakiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa waxay hadda u heeloon tahay taageeradiisa iyo kalsoonidiisa qofka bini aadamkaana taageerada iyo kalsoonida waa maamul Ilaahay siiyay laakiin meel buu ka raacaa ra'iisul wasaaruhu cadaaladda iyo kalsoonida iyo jeclaanta ummaddu ay u hambalyeelayso waa iska hibe Ilaahay siiyay lillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad aniga wax dambe meeshaan igu haray ma jiro warkii wuxuu ku dhamaaday sababtaan saaka isugu niyad waxay ahayd ra'iisul wasaaraha taageeradiisa waxaan leenahay hawshu watan Allah ku guuleeyo ilaahayna ha ku guuleeyo xaqana ilaahay ha tuso annagana Allah isoo ka dambi dhaafo dad islaam oo isku yid baan nahay ilaahayna aan ka cabsano cidaan duulaan ku nahay cidaan wax ka sheegaynaa midna ma jidho waxa kale oo intaas aan ku darayaa gudiga arintan gobashaan noo qabtay oo magaciisa la yiraahdo tala wadaag oo daafaha intaan ka ognahay ilaa 300 oo qof ka badan lagu sheegay oo reerkan ka dhashay hawsha ay ka shaqeynayaan oo ay noo sheegeen ama hore ay noo sheegeen ama haddaba ay noo sheegeen annaga waxaan la ka rabaa reerkan cid walba in ay tiinkeeda ka tashato waxaan rabnaa odayaasha inta maqan in loo yeero inaan ka tashano danaheena guud iyo midda gaarkaaba midna soo wixii dadka nagala dhaxeeyo iyo midda noo goonido in laga tashado in arintaas la isku dhiirigeliyo
in ayagaa diyaar noo ah in dadku la yeesho irid laga soo galo gurigaan hadduusan albaab lahayn waa dhumhaya sida hadda waayahan dambe socotay nin aan cidba matelin oo inta loo yeerto la yidhaahdo oday baad cidda u tahay oo nin dan wataa uu ku danaysto ayadaas wey waxaa hadda dadkaani ka hadlaayeen guddigaani ka hadlaayeen ciddaani waa laga warqabaa burburkii ka hor qof iyo laba u hadli jidhay 13 oday bay lahaayeen hal oday baa madax u ahaa hal nin wuxuu soo sheegana waa la qaadan jiray laba waxay soo sheegtana waaba go'aan bay ahayd hadda waxaan leenahay arrintaas aan dib uga tashanno aan dhaqankayagii iyo sharaftayadii iyo karaamadii soo ceshanno u mahad celinayaa dadkii soo abaabulay oo ka soo shaqeeyay oo ku dhiiraday in xaqa lagu taageero ama magacyada halkan ku qoran oo ay ka mid tahay badbaadada dalka jahaynta doorashada istaaga cadaaladda saddexdaas qodob baa meesha ku qoran waa uga mahad celinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay haddaan intaa ka gudbo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan leenahay cadaalad baa ku taagan tahay waa lagu garab taagan yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan ku garab taagan qabiilna lagu taageeri ma waxa lagu taageeriyaa cadaaladda iyo maartay jahaynta doorashada aad jahaynaysid waxaan leenahay ilaahay kula garab galo ummadda Soomaaliyeedna waa ku garab taagan tahay qaasatan gobolka Mudug dadka dhaqanka oo ka hadlaya oo kula hadlaya sidoo kale waa ku garab taagan yihiin oo anagu aan ka midna waxaan leenahay ra'iisul wasaare arrinta gacanta ku haysid oo cadaaladda oo ummadda Soomaaliyeed ku garab gashay oo lagu garab istaagay oo adduunka dhan laga hambaliyanayo meel la hawo leexan ayada xaqa waa ku taagan tahay wada qaldan kuma socota sidaan rajeynayno waxaan leenahay boqolkiiba boqolka taageera ummadda Soomaaliyeed ka haysta wax kale lagu taageerimayo qabiil lagu taageerimayo cadaalad darro ku taageerimayno waxaan ku taageerinaa waa xaqa iyo cadaaladda iyo meesha dalka ka qabato meeshu maray waa la wada ogyahay dalkaas oo bohol ku dheeraba oo god ku socda baa ilaahay ku soo saaraaday gacantaad qabatay ilaahay hadda si cadaalada oo ummadda ku qanacsan tahay Soomaali ku qanacsan tahay oo adduunka darfiiso dhan laga qanacsay sidii baa wali ku jeeynaysaa waxaan leenahay sidoo kale aan kaaga mahad celinaynaa dadka inaad cadaalad darro u horseedin gabadha hadda dibku ka bilaabo Soomaaliya konfliktigeedu ka bilaabo waa cadaalad waxa la isku haystaa wax kale la isku haysto waxaan leenahay wasaaraha hadda aniga intii aan ka arkaynay ilaahay hadda wax wada qaldan aan ira wadadana aan ka waanino aan ira ra'iisul wasaare ka leexo uma aan jeedo runtii waxaan u jeednay inuu cadaalad ka shaqeynayo waxaan u jeednay dhibaatada dalkii dadkan ka geystay oo dhibaatada u horseeday inuu gacanta ka qabanayo leeyahay warka jooga asagana lagu dhibaayo cadaaladda ha aadine cadaalad darrada nagala shaqeeyo marka waxaan leenahay ra'iisul wasaare cadaaladdaasaan kugu ognaay ayadaan kugu garab taaganaay intaasaan kala dardaarmayna إلهي خالق هذا اسكو كايا كان أن أبورتي وإن أنا أسأل كعب سنن وأبورتي إله أسبانكم مهدنا إنا الله مهدي جيسك بعدي وحنكم مهدنا إنا ضدك أنت شركة سواء بابلي أو إلهي جرنسية إني رئيس الوزراء الصومالية إن لا تاجر ضدك شركة أقبتنا وأنا حمد علينا يا جنا مهد بان علينا مهد علينك بعدي رئيس الوزراء وحبان لنا ومد الصوماليان وربان لنا أنا جنا وحبان إسفرنا ومد الصوماليات وحن لنا إلهي هدون نعمة إنسية والغو شكرية لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بإلهين هدي نعمة لكو شكرسان وإني سيادين هيا إلهي رئيس وسارنا وغدق محمد حسين روبله إلهاس أنو مهاد علنو رئيس وسارنا أنكو شكرنو نن أن أبقني أو صوماليا أنفعي أو عداية هذين هيا أو ظلم جديدين وي أسألنا وحنا لأنهاي خاتمة في عنبا كوسو عتايا لو خاتمة سيتين شيطانك وحا اللي يري أحد كمركي بني آدم كنتو وصو جنبضو أيو سنبر الحياة شيطانك يوسف يدتك
intii lagugu soo gambado yuusuf ku samiridixin xaqa dadku kuugu begay oo waayahan dadka ka raagay oo maaragtay lagugu dadka dhan ay kugu jeclaadeen intii shaydaan iyo dad kuu sheekeeyaan ha ka leexleexane xaqaas waxaan leenahay midigta intaad sidaa ugu haysid ugu adkaatid ku adkow oo aad iyo aad maaragtay ilaa ku dhimo xaqa ku dhimaan leenahay farmaajo waxaan leenahay farmaajow wakhtigaagii 4 sano waa soo cuntay soomaaliyana in la badbaadiyay rabtaa wixii ilaahay kuu qorana dhaafi maysid farmaajow soomaaliya dhibka ka daa ra-iisul wasaaraha dhibka ka daa wixii ilaahay kuu qadaray sugo intaasaan farmaajona faraynaa ilaahay soomaaliya xaqa allaha tuso dulmiga dadka wada allaha tuso kuwii dowladnimadooda iyo dadnimadooda si wanaagsan u arkana allaha naga dhigo annaga dhan ra-iisul wasaaraha Rooble inuu yahay cadaalad salkeed inuu yahay intaasaa hambalyadeeda meesha iskugu nimid waan u hambalyaynaynaa waxaan leenahay ra-iisul wasaarihii jira noqo ilaahay ha kula qabto sidaasaanu kugu hambalyaynay waxaan kaloo leenahay madaxweynaha federaalka subax barqadii baa dhiibtay waxaad wada u xulay Soomaaliya u xushay markaad u xushayna aad iyo aad baa loo mahdiyay sidaas loogu mahdiyo aad ugu dhiibtay annaguna waa ugu dhiibna waana u mahad celin sidaas Soomaali inuu ugu shaqeeyo dawladda uu dhismaheeda uu sidoo soo dadejinayo u dadejiyo Soomaalida dadka sidoo u kala xaqsiina inuu kala xaqsiyo haddee garbihiisina dadka Soomaaliyeed oo xaq raba baa garbihiisa ninka xaq rabina Allah soo jeediyaa leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa beesha meesha isugu timid nooc kastoy tahay hadday culummo leedahay hadday nabadoonno leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirka waxaa leeyahay dad wax looga sheegin ra-iisul wasaaraha lagu taageero anu waddaan dad wax ka sheegaya sacad baan ka sheegaya ummad dhaafsan ka sheegina waxaa leeyahay nimay weeso u dhowran tahay adin kama naxo say waaba u dhowrnayde hadda waxaan arkaya markii la hadli tago aamus dad leh waxa weeye shirki waxa lakugu yeeray oo ifiitadana loo siiyey ra-iisul wasaaraha inaan taageerno ra-iisul wasaaraha xuseen maxamed rooble waa taageeraynaa waana u ducaynaynaa kii guulaysta allah ka dhigo kii xaq u guulaystana allah ka dhigo raggayga baqahaya oo beesha sacadana waxaan leeyahay ardada markay qur-aanka dhiganaysa shiiqa markay u jeedda waa ka baqdaa dad badan baa la martiqaaday waana imaan diideen haddii bele kale aan martiqaadnana way imaan lahaayeen allaha daweeye way jiran yihiin anigu shirka intaasaan uga baxahayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu badnayd waa la sheegay ragga odayaasha akhyaarta waxgaradka dhammaan intaasoo dhan baa sheegtay marka badin maayo waa soo koobaya laba qodob iyo yar baan kusoo koobaya insha allah haddii ilaahay waafajiyo waxaan salaamayaa marti sharafka halkan lagu casuumay odayaashu u horeeyaan waxgaradka aqoon-yahanka dhallinyarada ciidamada dhammaan inta ka soo qayb gashay shirkan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaam maanta waxaan halkan ku taageeraynaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya injineer maxamed xuseen Rooble oo aan ku taageerayno shaqada wanaagsan oo bulshada u hayo dalka iyo dadka u haya Soomaaliyeed waxaan leenahay mudan ra-iisul wasaare shaqadaas lagu igmaday oo ummadda Soomaaliyeed ku igmatay Allah kula garab galo annaguna wixii niyad ah iyo wixii ducaa baan halkan rabnaa inaan kaaga soo jeedino oo aan leenahay ilaahay ku fududeeyo shaqadaas shaqada haysaana waa shaqo iska yar Soomaalidu waxay ku maamaadaa harag sagaaro iga kacmooyo iga durugma leh shaqada dhan oo haysaa waa harag sagaaro meel looga durka ma leh waa waxaas yarka ah oo saddexda bilood labada bilood ah dadka haystaan waxaan leenahay oo ku dhagan ooga fuqa labadaas bilood insha Allah doorasho wadanka gaarsiiyo walaalayaalow dad baa hadda ka hor xildhibaano soo xushay oo madaxdii ka horeysay ayagoo xildhibaanoodii waxoodii isku soo abaabushay bayna waayeen xilkii marka waxaan waa wax calafa iyo qadar ilaahay ku siiyay ma ahan wax lagu helayo xoog iyo marooqsi iyo xidhnaa soo xulasho iyo wax lagu helayo ma ahan
markaan waxaan leenahay imaanku hadin galo insha allahu ra-iisul wasaarahana allah kula garab galo madaxweynaha jamhuuriyaddana isagana waxaan leenahay haddii ra-iisul wasaaraha maadaama u egmatay u daa labadaas bilood in ilaahay waafajiyo aduguna ku garab sii asaguna shaqadiisii la rabo ha u guto intaas baan kusoo gabagabaynahayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin horumar wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim way noo dhammaatay munaasabadii waxaan u mahad celinaynaa intay wicitaankan aqbashay oo ajiibtay walow ay ahayd waqti hore inaanu ballanta samaynay haddana ay ku soo aaday waqti dambe waxaan rabaa inaan idhaahdo horta walaalayaalow qof kasta oo mas-uuliyad haya oo dalkii dadkan u dhaartay dadkuu ka dhaxeeya marka haddii hadda la magacaabo hebel la yidhaahdo yaan maxay ahato la dhibsan qofku dadku ka dhaxeeyaa madaxweynaha federaalka ummaddu ka dhaxeeyaa dadka halkan fadhiyo madaxweyne u yahay ra-iisul wasaare dadku ka dhaxeeyaa dadkan buu u yahay ra-iisul wasaare mas-uul kasta oo la sheegay sidaas weeye meeshan waxa maanta laga hadlaya waxa weeye cadaalad iyo loo madax baneeyo ra-iisul wasaaraha hawsha uu hayo lagulana shaqeeyo intaasuu ahaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida aad mataqaana ilaahay u taageerteen iyo ra'yigaa maanta aad ka muujiseen ilaahay ha idin karaameeyo annagana waxay noo tahay dhiirigelin kaliya waxaan codsanaynaa waxa weeye bahda maanta meeshaan joogtahay wax alla waxay leedahay ha ka tashato intaasaan ku celinaynaa walaalayaal ka tashada wixii dhib inku ahna ka tashada saa dhibka iskaga dhinaca ugu aragtaan qoraxdu meeshay ka soo dhacday meeshay u dhacdo dhinac walbo iska xigtaan tashi baad u baahan tihiin waxaa ka jira inaad ka tashataan kana midowdaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna waa noo xiran yahay qadaduna noo furantaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu